xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland oo maanta wax ka weydiinay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo lagu waday inay ka dhacaan dalkaasi Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi oo haatan la sheegay inay istaageen waxay dareere kala duwan ay ka dhiibteen wadahadaladaasi maqaam aad u sareeyo waxba Soomaaliya eegina meesha igaad baa maraysa EUD baa maraysa Mareykankii baa maraya waxa maraya dawladii Turkiga baa maraya reer nabi aadan ragii waaweynaa oo dhan way fadhiyaan la eegi maayo anu maanta xalay markii la yidhi dhiici bay soo direen innagana niman gaashaaman oo wasiiraaba tagay aad baan ugu farxay taasi waxay tusaysaa waxaan wax lala hadlaba inaanay ahayn dugaag inay yihiin meesha loogu yeedhay nooca u soo dirayaan baad arkaysaa inaanay wada hadalladu dhabka ahayn inagu anu waxaan qabaa aragtidayda inay inaga dhinaceena positive noo tahay waayo inagoo keliya aqal ma wada gelinay adduunkii baa hareeraha inaga fadhiya inaguna inuu rag wacan oo milgahooda loo miisaan la dirno heer wasiiraa iyo agaasimayaal advisors la taliyayaashii madaxweynaha ee la diro waan ku faraxsanahay inaynu meesha soo fadhiisano inagoo raga ah iyo iyagoo gashaantimaa inaynu adduunkiina arko taasi waxay xaqiijinaysaa wada hadal Soomaaliya ay diyaar u tahay inaanu jirin marka la eego dadka ay soo dirayaan iyo maqaamka hooseeyo ee ay leeyihiin laakiin inagu ma qiimeynayne adduunkeenu qiimeynaynaa igad haynala aragto EUdu haynala aragto Turkigu Turkigu ogiyo uu garanaya isagu waliba Mareykanka iyo EUda iyo African Unionku harkay waxaan qabaa inay mission aad u wanaagsan tahay maalin baa la is arkayaa waxa imika halka lagu xitaa dhiijigaas waxa uu ku hadmaanday dama sito meel wax ku celiyana ma hayo adna wajiseen xildhibaan ku jawaabay anigu sida kale lagu jawaabayaa waxa weeyaan maqaamkeenu taagnayn hoos baa loo dhigay wasiirkeennii ambaasadorkeennii in ayaa la shiray in yaro madaxtooyada director marka inaynu nimankan aanin waxbaba isku ahayn waan waxbaba la ahayn ay taas weyn tusaysaa adduunweynahan ka soo qayb galay ee Tugriga ugu horeeya waa kuwii horeba inoo cadaadinayay maca Tugriga maca directorka in la shiro may hayn maqaamkeennii hoos baa loo dhigay waana meel aad sharaf dhacba Soomaaliya ku yimaano ayaanu tarafsay waxa natiijada waxa waa la nagu qosliyaa wasiirkeennii dakhliga ahaa oo professorka ayeen yaro director la shiraya waxa weeyaan waa waqti jaalis weeyaan marka waxa weeyaan taas oo kale inuu tagna may hayn inay meel ay wax ka soo baxayaan niyeesoo no wax la goyn karo ayeen inay tagnaaba ahayd laakiin in yaro director inuu meel noo fadhiiso Soomaaliya mula shiraya maqaamkeena waka xaafan la shirin ku maxaa la ku galmudug ayaa la shirin kuwa Mar Ali Ducaale Umar Shabash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.